amniga Soomaaliya guushu waxay ku xiran tahay midnimo qaran maaha siyaasad kala qaybsan. waxa soo diyaariyay faaladan Yuusuf Saciid Xirsi oo ah aqoonyahan ka faalooda arrimaha siyaasadda Soomaaliya ee guud ahaan geeska Afrika waxaana uu ku bilaabay sidan. ammaankii la dagaalanka argagixisadu waa imtixaanka ugu weyn ee dawlad kasta oo wajahaysa koox hubeysan. taariikhda dhawitaan fogba waxay muujinayaan in guusha laga gaaro kooxaha noocan ah ay ku xirnaan karto marka dawladda u wajahdo dagaalkaas sidii arrin qaran oo mideysan hay'adaha dawladda bulshada iyo waliba hoggaanka siyaasadeed. qoraagu waxa uu yiri tusaalooyin badan ayaa loo soo qaataa dawladda ku guuleystay inay si adag ula dagaalamaan kooxaha hubeysan. dawladda Sri Lanka ayaa dagaal dheer kadib waxay soo afjartay kacdoonkii Tamil Tiger ama ATTE halka Ciraaqna ay guulo ka gaartay dagaalkii lagula jiray Daesh iyadoo kaashanaysa iskaashi gudaha iyo waliba dibadda ah. gudaha Soomaaliya howlgalka Puntland ee lagula dagaalamayo Daesh ayaa sidoo kale tusaale u soo noqday sidii dadaal mideysan u horseedi karo guulo muuqda. aragtidana waxay qabtaa in guulahaas ay salka ku hayeen in amniga loo arkay mas'uuliyad qaran oo ka sareysa khilaafaadka siyaasadeed. sida uu yiri Yuusuf marka laga hadlayo dagaalka lagula jiro Al-Shabaab waxa jira dood siyaasadeed oo xooggan oo ku saabsan sababaha aan weli loo gaarin guul waata. aragtidan waxay qabtaa in madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday Xasan Sheekh Maxamuud uusan ku guuleysan inuu abuuro is-afgarad siyaasadeed oo ballaaran kaas oo mideeya dawladda federaalka, dawlad goboleedyada iyo waliba mucaaradka si dagaalka lagu wajaho hal jiho. sida ay qabto aragtidan khilaafaadka siyaasadeed ee u dhaxeeya dawladda federaalka iyo qaar ka mid ah dawlad goboleedyada ayaa weeqay dadaaladii lagu mideyn lahaa awoodda qaranka. taasi beddelkeedana waxa uu yiri waxa la rumaysan yahay in loo baahnaa wadatashi waliba heshiis siyaasadeed oo horseeda in dagaalka Al-Shabaab loo arko mas'uuliyad qaran oo ay wada leeyihiin dhammaan dhinacyada siyaasadeed ee Soomaaliya. sidoo kale Yuusuf waxa uu yiri waxa sidoo kale jira walaac ay qabaan qaar ka mid ah falanqeeyaasha siyaasadda oo ku saabsan suurtagalnimada in Al-Shabaab ay sii ballaariso saameynteeda haddii aan la helin hoggaan mideysan iyo waliba istiraatiijiyad qaran oo loo dhan yahay. qaar ka mid ah waxay isbarbardhigayaan xaaladda Soomaaliya iyo waliba dhacdooyinka Afghanistan inkastoo labada xaaladood ay ku kala duwan yihiin duruufaha siyaasadeed, juqraafiyeed iyo waliba kuwa amni. dhanka kale xiriirka caalamiga ayuu Yuusuf waxa uu sheegay aragtidan waxay sheegaysaa in deeq-bixiyaasha caalamku ay muujiyeen walaac ku saabsan khilaafaadka siyaasadeed ee gudaha Soomaaliya isla mar ahaantaana ay aaminsan yihiin in wada shaqayn buuxda u dhaxaysa dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada ay muhiim u tahay sii wadista taageerada amniga iyo waliba dib-u-dhiska dalka. sidoo kale waxa uu yiri shirka Kampala ayaa lagu wadaa inuu diiradda saaro arrimaha amniga Soomaaliya iyo waliba kaalinta ciidamada shisheeye ay ka qaadan karaan xasilinta dalka. aragtidana waxay dhaliilaysaa in madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday Xasan Sheekh uu shirka ka qayb galayo iyadoo sida ay qabaan dadka aragtidan leh aan weli la gaarin heshiis siyaasadeed oo gudaha ah oo mideeya dawladda iyo mucaaradka. gabagabadii dagaalka lagula jiro Al-Shabaab ma noqon karo mid guuleysta haddii uu ku ekaado dawladda dhexe oo kaliya. guusha waarta waxay u baahan tahay ayuu yiri Yuusuf midnimo qaran, wadatashi siyaasadeed, kalsooni u dhaxaysa hay'adaha dawladda iyo waliba dawlad goboleedyada iyo waliba in dhammaan shacabka Soomaaliyeed ay dareemaan in dagaalku yahay mid lagu difaacayo qaranka oo dhan halkii uu ka ahan lahaa muran siyaasadeed. Yuusuf Saciid Xirsi oo ka faalooda arrimaha siyaasadda Soomaaliya ee geeska Afrika ayaa qormadan anigoo Maxamuud Cabdi Ibrahim iyo warbaahinta Ogbaad TV-na waad kala socoteen.